بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, golaha wasiirada, haweenka shaqo qaran oo horeeya agaasimaha shaqo qaran, taliyayaasha ciidamada kala duwan, gudoomiyaasha jaamacadda, bahda dhaqanka, bahda saxaafadda, dhalinyarta maanta xafladan quruxda badan loo qabanayo shaqo qaran baashiri. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam, magacay waa maxamed diyaale. waxaan ka mid ahaa dhalintii sanadkiisa xafladeedii halkan qalinjabinta lagu soo xidhiyey. awoodii iyo kartidii aan ka dhaxlay shaqo qaran waa taygeysiisay maanta inaan noqdo mas-uul iyo hoggaan ka mid ah hoggaanada dalka. degmada ugu balaaran aan maayir ka noqdo. mahadda koowaad waxaa iskale allah, mahadda labaadna waxaa le madaxweyneheena mudane Muuse Biixi Cabdi oo hormuud u noqday cadaaladda iyo sinaanshaha dalka iyo horumarinta aqoonta. intaas kadib runtii waxaan doonayaa waxay ka taabto faa'iidooyinka laga dhaxlay shaqo qaran ee madaxweyneheenu ku suntan yahay, aasaaskeeda iyo hal-abuurkeeda iyo hirgelinteedana uu isagu leeyahay kuna amaanan yahay. waqtiyadii hore marka dhalintu ay ka soo baxdo jaamacadaha waxa ay oran jireen cid qabiilkooda ah ama suldaan ama caaqil ama wasiir shaqo geeya. qofku wuxuu odhan jiray waxaan kaxaynayaa waxaan u tagayaa wasiir hebel, waxaan u tagayaa suldaan hebel si aan shaqo horo. taas waa laga gudbay gaabkaan waxa jebiyey shaqo qaran. marlabaadka waxay xakamaysay oo meesha ka saartay dhalintii tahriiri jirtay ee dalka dibaddeeda ay jirtay. markay dhalinyartu ay ka soo baxdo jaamacadaha muddana ay dalka ku shaqo weydo waxay ku kalifi jirtay inay tahriibaan oo waalidkooda ay dhibaan oo iyagoo aqoon-yahana ay madaxa ku dhintaan. taasna waxaa daawo u noqotay barnaamijka shaqo qaran. waxaa sidoo kale barnaamijkani uu xakameeyey qaryaalada. waxaa meesha uga saaray in qofku uu ku timaado cid qabiilkiisa ah. hadda qofku wuxuu helay kalsooni uu ku shaqayn karo oo qarankiisa uu kaga heli karo shaqo. sidoo kale barnaamijkan wuxuu hirgeliyey isdhexgalka dhalinyarta aqoon-yahanka ee dalka. min lowyacado ilaa iyo baran inta udhaxaysa waxaa laga yaabaa ka yimi lowyacado ama ka yimi boorama inuu sayidta ku xigta uu hurdo mid ka yimi baran. isdhexgalka, isfahanka, aqoon-is-weydaarsiga, isbarashada dhalinyarta ayuu hirgeliyey barnaamijkani oo uu hoggaamo. maadaama aynu nahay midihii qaranka oo anigu aan ka mid ahay oo dhalinyartii iga horreysay baajoonkii ay ka mid yihiin iyo dhalinta maanta joogtaan, waxaaynu nahay midihii qaranka. inaan maanta halkay soo taago oo aan intaba madaxa ka hor khudbadeeyo waxaa ii suuro geliyey waxa weeyaan inaan nahay midhihii qaranka. waayo intaasoo waayoo kala duwan oo dalka ka soo baxay ayaan fursaddan aan helin, laakiinse aniga taygeysiisay waa inaan nahay midhihii qaranka. dhalinta waxaan leeyahay waxa laydinka baahan yahay kartidiinna, hawlkarnimadiinna, aqoontiinna inaad dalkiina si daacada u gelisaan uguna hogaamisaan. waxaa loo baahan yahay inaad soo hordhigtaan ahdaaf iyo qorshayaal horumarineed, inaad isa saartaan mas-uuliyad guud. qof walba keliya kama mas-uultidii shaqada laydin diray, laakiinse waxaa ka mas-uul tihiin dhammaan
shaqada qaranka oo dhan. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugtan hal-abuurnimo, hawlkarnimo, horumar, cadaalad iyo hogaamin umman. aad iyo aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.